silsiladii milgay ismaan dhaafrga dhexdiisa ayay xabadu ka bilaabantay qaybta 18 ee silsilada waxaa jawaab difaacada kulli faaqaya soo gantaaleeyay abwaan cismaan jignaa oo codkiisii baxsanaa abwaan cayn ugu sheegay dood suugaaneed baa wax lagu xalinayaa inuu ragga xawalida u qabanin cismaan oo si xaladiisan silsilada u soo galay ayaa yiri hadal mida marrimin dhowrin lagu matalo masreeydaan ku yiri ha ka tagin milgaha adoon maareen karayn house of in midida iyadan wali dumarka lagu daba taagan yahay waxa mawjadiisa mugalaha inooga soo ixtiraam abwaankii silsilada seeska u jeexay abwaan baadiye laxanka iyo muusigu waa macallimiintii hore silsilada seeska ugu jeexay qabashada codku waa maxamed kaadheeri oo baryahan bay iska reer jigjigoobay waa soo saaristii midnama qaran filmis iyo howlwadeennada idin leh talow maxay dumarku soo wataan merisalo fadhiin meesha keenayow wayga hadalku yaal midiba kaaga jira murtida xaalgaliya siday maamaadu til anigoonku maldihishow ismaan dhaafka jir adoon milisan buu xaalku kugu markaaday adan maarayn karayn ha u soofayn mindida hadalmida marraabin dhowrin lagu matelo kafiirso masaraydan ku yidhi ha ka tegin milgaha adan maarayn karayn ha u soofayn mindida adam yaqsi baye majaraha halumin kamugay weedha taal sida ku muuqate waan ka maarmaa hablaha meel kuma qorin adam yaqsi baye majaraha halumin shaygi kurida waa mahigaan hidaa ma shaqaysiinaye qaabkii loomay ilaa aad umuuraan hageli maxastiyo maqnaada
maloolka shaygii ku rid waa mahigaan hidaha ma shaqaysiinaye qaabkii loomay ilaa aad umuuran hageli هذا الميدا مرة من دور اللاغو متيلو فيرسا هاي كفيرسا نسريدان كويري هكتاقين بالقاها فيرسا هاي كفيرسا هذا المارين كارين هاو صافين من ديدا هذا الميدا مرة من دور اللاغو متيلو فيرسا هاي كفيرسا نسريدان كويري هكتاقين بالقاها فيرسا هاي كفيرسا هذا المارين كارين هاو صافين من ديدا